halkan aan ku suganahay daawadayaal waa xarunta wasaaradda biyaha horey waxay u ahayd xarunta wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta dowlad goboleedka Jubbaland balse haatan laba wasaaradood ayay kala noqonayaan oo macdanta iyo tamarta ayaa wasaarad gaar ah noqotay halkan ay ku sii shaqeyn doonto wasaaradda biyaha waxaa ka dhacday munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana uu ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta tamarta biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdirashiid mudane Cabdiraxmaan Maxamed iyo wasiir ku-xigeenkiisa Cabdirashiid agaasimaha guud ee wasaaradda ee qaybaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda sidoo kale waxaa goobjoog ahaa xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo wasiirka cusub ee wasaaradda biyaha mudane Axmed Xuseen Barake Zubeer munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahayd in uu xilka kula wareego wasiirka cusub isla markaana sharaxaad kooban laga siiyo nidaamka iyo systemka ay ku shaqeyso wasaaradda biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland ugu horeyn waxaa sharaxaad kooban bixiyay isla markaana dhowr buug oo ay ku xusan yihiin waxqabadkii iyo sidoo kale qorshayaasha u degsan wasaaradda biyaha ku wareejiyay wasiirka cusub wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha mudane Cabdiraxmaan Maxamed waxa uu sheegay in ajandayaal dhowr ay soo dejiyeen isla markaana qorshayaashoodu uu yahay kuwa markaas meel sare higsanaya meeshani waa xaruntii wasaaradda oo ka kooban qoral waxa weeye ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha shaqaalihii wasaaraddu waa kuwan waxa weeye oo shaqaalaha runtii waxa weeye expert ah khibrad leh aan soo wada shaqeynaynay muddo runtii waxa weeye dad shaqadooda ku haboon oo ku fiican waxaan is leeyahay markii aan imanayay wasaaraddan waxaan deganayd xarun kale oo 3 qol ka kooban 3 sano gudahood waxaa noo suurta gashay wasaaraddu maanta inay waxa weeye degan tahay xarun iyadoo ay leedahay shaqaale uu madax bannaan oo gaar ah gaadiid ka kooban kuwii lagu shaqeynayay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo ay ku shaqeynayeen iyo shaqaaluhuba ku shaqeynayeen baabuurtii booyadaha loogu adeegaya dadka oo ilaa 4 booyadood ka kooban oo bulshada loogu adeegayay iyaguna waxa weeye oo loo keenay oo waxa weeye asid ay dawladdu leedahay sidoo kale qalabkii biyaha lagu baadhayay iyo shaqaalihii waxa weeye baadhayay oo iyagana diyaar ah wasiirka cusub ee wasaaradda biyaha Axmed Xuseen Barake Zubeer oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in uu ka sii ambaqaadi doono halkii ay shaqadu mareysay isla markaana uu rajeynayo in door wanaagsan uu ka qaadan doono sidii magaalada Kismaayo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay u helayeen biyo nadiif ah oo ku faraxsanahay maanta inaan xilka kala wareego wasiiradii hore ma sheegi karo wixii ay tiriyeen wax qabad ahaa iyo wasaaraddu meesha ay ka keeneen laakiin waxaan ballan qaadayaa wasiirkii igu xigi dooneen xilka ku wareejinayo inaan ka bilaabo maanta ilaa iyo maalinta wax tar badan inaan ku wareejin doono hadduu Ilaahay awoodda la yiraahdo ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo munaasabada soo xiray ayaa kula dardaarmay wasiirka cusub in uu markaas isku hayo shaqaalaha guud ee wasaaradda iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda isla markaana uu ka shaqeeyo wasaarad horumarsan oo la jaan qaada systemka dowladnimo ee dowlad goboleedka Jubbaland wasiir adigana tiimka hadda meeshaad ugu timid nin iyo laba waxba ma qabtaan guushan waxaa keenay tiimkan baa keenay shaqaalahan agaasimaha uu weyn yahay ayaga mar walba siyaasadda waa isbedeshaa laakiin waa dadka shaqada leh yaqaano waayo arag ah lagu dhaqaaleeyo marka waa cusbahayo wax cusub baan raadinayna dhihin wixii jiray iyo aqoontii jirtay asii kubciso ka faa'iideysato shaqaalaha Jubbaland intooda badan sida maqlayso waxay ku shaqeeyaan mutadawacnimo cadow bay leeyihiin waliba dhaqaalaad heli laakiin cadaawadda kala yeelanayso yaa ka dar cadaawad kala jirta oo qofka markuu shaqada dawladda hayo cadaawad kala yeelanaya marka tixgelin baad siinaysaa haddii Ilaahay yiraahdo halkaas inaad ka sii hogaamisid baa laga rabaa haddii Ilaahay yiraahdo tiimkaas Sabriya Soomaali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo